بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبارات كلا دوان أو حساب بدن أنا فيديو بإذن الله تعالى كوسا بندق دونا أو كلا دوان هدي وهرين عندما دي إسرائيل جودها غزة وتيسو قلنا قاب بدن شعب كإيران لكن نعم أيضا وحي كل عين هاي عريمة بدن يجوك بدن أيا جرته فيديو أيا لصوب بندقي المهم أنت سنفنخين دونا بإذن الله تعالى وقونا مركز سوسي قامبه تون الذي قداش مراين معنا إن عاسي آذايا المهم وإزولتها يدونا بإذن الله تعالى سيدا سوكرة دقال كمراي كان كإيه تشاينا وحد باللوضي معان دقال كي حبدا ودقال كدخاله ولمان فلنقياش الشيء يعني إنه كدرين هاي دقال كديل كإيه ديك إيه حبدا كبح محايا لي هذا جاء مراي كان كا وحسور رجي وجاينا كسور رجي يعني بخل كي بخل لواتن إيشان جاينا وي هذا الشيء المهم أيضا وحبي صارتي أرنتاسي فإذا كوجدته نعم أبي داوانايا لما أنتنا فإذا وجدته محيط هاي وان كان دونا بإذن الله تعالى حوثيين تأنقوا باللون لكن هالمرة نعم محايا لو حصبح إخبار شيء جيسا إن مرايكان كا لغيا وعيدما لقأ إنه قريو يمن أرنتها سمر كان أخرين يعني وان غريب صدي لكن صار أسعد وحن أتغي ها مرايكان عيدما ودرايان لكن وسراكيل ciidamada laakiin gali doona xuuthiyiinta dabcan wajihi doona waxay u badan tahay inay noqdaan ciidamada dawladda Yemen waa sida macnaha kuwiisa ma aha ku dagaalka galaya koodii sidaas la dhahay laakiin arintaasi hal shardi ama hal arina jirta oo diidaya waxay tahay dawladda Imaaraadka ma rabto ciidamada ilan ayada lacagteeda bixisa ayada ciidamadeeda dabcan taqriiban u aragta marka ma rabto in ciidamada hadda la isticmaalo maxaa yeelay ka baqaysaa maadaama xuuthiyiinta og yahay una diga Imaaraadka in meeshaasi ayada ay wax kaga raacaan laakiin Mareykanka lacagta uu bixiyay ee ku saabsan duqeynta kaliya 1 bilyan ay maraysaa hadda labo lacaga badan ayaa dawladda Yemen laga yaabaa hadda inuu siiyo ka duwan tii ka baxday already mid kale oo ciidamada Yemen ayaa si gaar ahaan loo tababaray yani kulli waa adeefaan wala farqama qodna iska dheh waa arin hadda bilaabanaysa dhinaca kale xuuthiyiinta waxay duqeeyeen hadda duqeyn ba'an maraakiib xeebta taalay oo Yemen saa usoo duqeynaysay ayaa ayagana duqeeyeen ayagana dabcan habeen walba xilligan hadda aan hadlayo xalato kada ayagana waxba lagu sameeyaa lagu dhuftaa ayagana way sidaas oo kale inkastoo meeshaasi hal cilada jirta oo shacabka reer Yemen ayaa in badan jugta ay ku dhacaysaa nacam haddee si haddii loo fiiriyo waxaa la leeyahay Mareykanka asagoo dhahaya xuuthiyiintan macnaha yani target garaysanayna saraakiishoodii ciidamadooda haddana dadka Faranqiya waxay leeyihiin Yemeniinta lama kala yaqaano xuuthiya kan ah iyo kana xuuthi ahayn maba jirtaba maxay kulli wada midiyaha halkan ku wataan in badan kamid ah aakayaashu u suran yahay marka ka Sacuudiya ee kan sababtaas keenaysa leeyahay khasaaraha shacabka inuu bato yani waa shacab badankiisa hubaysan hatta hadduu qori wadan mididii halka ku wataa bal xuuthi kale ka soo saar adiga yani inta ma ugu qoranta xuuthi uma qorna marka almuhim arinta in Mareykanka laga yaabo ciidamaha waa sida qoraalku waa sida inuu ciidamadiisa geeyo arintaasi ma kula tahay maxay la gadaal xogaayr nacam qaybta hoose waxa leeyahay ku Yemen ayaa laga yaabaa laakiin saraakiil uu diri doona asaga laakiin qaybta uu ku bilowday waxay tahay hadduu u baahdo Mareykanka wuxuu diri doonaa ciidamadiisa gaarka u tababaran ay u diri doona commandoska dhinaca kale isla xuuthi iyo Yemen intan ku jirno Mareykanka wuxuu diidayaa wuxuu leeyahay maraakiib ku soo xiranaysa dekada Yemen arintana ma yeelino dawladdan ku aragno halkaana qaban doona iska jirto mardamayaan arkin digniintii ugu dambeysay ayuu Mareykanka inay socda ee Mareykanka iyo China horta China waxay leeyihiin waan dhimanaynaa ma ahane ma xari doono haba yaraatee mana yeeli doono in macnaha Mareykanka uu yani sida bullying noogu sameeyo yani oo noo gardareysto oo aan iska aqbalno wax ka jira malahan leedahay ma harayno khaasatan marka ay noqoto ganaaxi oo nasaaray annagana waa taan saarnaa maxay sameeyeen marka China waxay sameeyeen 34 ayuu ahaa koodii hadda waxay ka dhigeen 84 boqolkiiba hadda sida boqolkiiba 84 ay canshuurta China Mareykan ay ka qaadi doontaa tan Mareykanka aanu imaano tan China maanta ay dhaqan galaysaa maanta mise berito afwan berito 10 ah ay dhaqan galaysaa waa Chinese-ka ama Trump alaaba uu soo saaray wuxuu leeyahay isla maanta yani صحيح markaas uu duugay boqolkiiba 125 ayaa lagu dhufanaa Chinese-ka tayib arintaasi maxay faa'iido noo tahay annaga ayaga hay iscilcilsadeen kada suuqii horta hoos u sii socdaa nacam qaara soo laabanaya
waxaan ku leeyahay haddii aad maalgashatay waad maalgashatay shirkadaha qaarkooda oon dabcan koorsada aan ku sheego haddaadan samayn fadlan ka gaar waxaa laga yaabaa haddaad fahanto arrintaasi shirkadaha qaarkooda haddaan ku kormaro BYD waa shirkad Chinese ah gawaarida samaysa electriga ah Tesla sidaas oo kale inkastoo Tesla xogaa ay qaali ay tahay laakiin BYD xogaa waa raqiis ogow xogaa yar soo dhacday xogaa yar maan wax fiican ay soo dhacday Nvidia aaday u dhacsan tahay Microsoft sidaas oo kale BP way dhacsan tahay si aan caadi ahayn Aramco shirkadda Sacuudiga ee shidaalka way dhacsan tahay war ha laga gaaro war qofkii gadan karo gado shares ahaanad u gadanaysaa saami ahaanad u gadanaysaa ogow saami ahaan markaad u gadanayso waa laga yaabaa isbuuc kadib inay lacagtaada kuu soo laabato ka badan yacnihi ama cafwan saama dhahayno bil ibar iska meelahaasi xataa 2 bil gaarsii waa laga inay kuu soo laabato maxay ayaamo ama isbuuciyay hoos u socon doontaa laga yaabaa laakiin shaki kuma jiro ilaahay idinkiisa 3 bil ama sanad gudihiisa intaad gashatay 2 jibaar ama 3 jibaar ama 4 jibaar hadba intaad gashatay ku xiran tahay dabcan ogow hadba intaad wax yar gashatana waxay la talaysaa hadba intaad wax badan gashatana wax badan la talaysaa kaamana lumayaan almuhim macnaha kumadihi samay 100% oo kugulama talinaayo laakiin waxa aniga sameyn lahaa ama sameeyay dabcan ardayda koorsooyinka qaata sameeya sida ahaataba arrintaasi waxaan leeyahay intay goor tahay kulay cidi rabta gacanta inay dhunkato halkaas aad biidin Allah taala koorsana ku faahfaahinaa dabcan gaar ahaan trading 212 iyo wixii la midka ah طيب ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo ka caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududeynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaan geli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag sameynta ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag sameynta maanta ano imaano qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena cafwan waxaa jira hubkan saaruuqan China ay soo saartay oo aan ka tagay ilaaway laakiin hadan u jeedaa waa iska dul marayaa waa saaruuq weyn oo kuwii dhulka loogu talagalay in laga tuuro ayaa China waxay u sameysay in diyaaradaha ay saarto yacni saaruuqan wuxuu ka weyn yahay caalamka kuwa ay isticmaalaan Mareykanka xataa awoodiisa culayskiisa iyo sida uu dheereeyo macquul ma ahan raadaar wala hub soo rida inuu awood u yeesho China soo saaraysa almuhim halkan dagaal waxa ka socda nacam dhaqaale ah dhinacna wala isdiyaarinaya dagaalkii rasmiga ah waa la isu diyaarinaya Yemen hal mar Yemen yaan dhinac cafwan aan imaano Gaza ugu horeyn arintan marway leedahay waxa weeyaan ciidamada Israa'iil waxay og yihiin shacabkan inay gaajaysan yihiin marka qaarkiis markuu waxay sameynayaan wax taraag u eg ama gawaaridan macnaha yacni ama xataa ayagoo cunto raadsanaya ama biyo raadsanaya ay meelaha socdaan Falastiiniinta markaas way ku shiish bartaan aniga hadalkayga ma waa Haaretz ay soo saaraysa qoraalkaasi Haaretz waa journalka Israa'iil ay wuxuu leeyahay la intee ka tawad dhigtaan ka toogta aniga halkee sujuudan kaga dhuftay halkee sankan kaga dhuftay halkee wadnahan kaga dhuftay yani saas ay u tababaranayaan masaakiintan gaaja haysa cuntaraadiisi ku jiraan ayagina waa sida xayawaanaadkii iyo wixii la midka ah iyo geedaha iyo xayawaanaadka lagu tababarto diin ahaan caadiyan arintaasi waa mamnuuc waa xaraam laakiin waxaan ula jeedaa sida mararka qaarkiisa la sameeyo saas ay u tababaranayaan marka midaasi waa taa dhinaca kale nacam Israa'iil waxay si fiican u degtay sheeganaysaana Rafax in ay ka dhigayso meel shacabka ka caagan meel al meesha shacabka ka qaxiso si cad waxay u leedahay kuma soo laaban doonaan waa kaasa shacab hadii halkan ay ka qaxiso kuma soo laabanayo ciidamadii adeegay kada Israa'iil Quds ayaa video soo saaray marka xamaasad sidaas oo kale video ay soo saareen labadaba waxaad arkaysaa goorma ugu dambeysay taangiyada Israa'iil oo holcaaya goorma ugu dambeysay dababadihii ciidamada ay saarnaayeen Israa'iil oo kor u kacaya arintii way soo laabatay maxay u soo laabatay waxay u soo laabatay hadii ciidamada Israa'iil gudaha soo galeen tunaladii marka gadaal u aadeen in badan oo kamid ah marka dhinaca waqooyiga wax baa ka dhacaya dhinaca koonfurta wax baa ka dhacaya dhexda wax baa ka dhacaya sida ahaataba hadba intay gudaha soo galaan ciidamada Israa'iil sida dhammaan dadka Faransiiska ay leeyihiin jugta way ku soconaysaa ayagana sidaas oo kale khasaaro weyn soo gaaraya ma ahan shacabkan Falastiiniinta la dilaya la tooganaya ama maxaan ku rahay korka laga duqeynaa nacam kuwaas u daran mar walba laakiin ciidamadii horey macnaha intay wax un tuuraan dhac dad iska dili jiray hadeertan ayaga dhigooda qubanaya ayaga la dilaya
gaar ahaan gabaaridii ayaa lagu qarxinaya intaa waa intii ugu dambeysay intaasaan kusoo koobayaa salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakatuh